kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta uu doorroona waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo markii ugu horeysay shaacisay sababta Galmudug ay dhaqaalaha ugu jartay dawladda federaalka Soomaaliya oo maamul cusub ka dhisay Galmudug maxaa ka soo baxay kulankii looga hadlayay xaaladda M.Robow oo Mansuur malaayiin ruux oo u dareertay doorashada dalka Australia qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo maamulka Galmudug dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday sababta ay dhaqaalaha ugu jartay maamulka Galmudug oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in sababta ay dawladda u joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay maamulka Galmudug ay tahay khilaafka xoogan ee ka dhex oogan maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa ka soo horjeeda madaxweyne Xaaf waxaana garab siiya dawladda federaalka Soomaaliya oo u adeegsaday inay ku jibiyaan Xaaf dawladdu dhaqaalaha Galmudug iyo maamulada kale way siin jirtay welina way siisaa laakiin maamulka Galmudug uu kala qaybsan yahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadii nus ka mid ah iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay meel fadhiyaan madaxweynihii iyo madaxdii dawladuna ay meel kala fadhiyaan kulamadoodana waxay soo wacaan madaxda dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin noo soo dira dhaqaalihii aan ku lahayn dawladda federaalka Soomaaliya marka lama diri karo waxayna dawladdu ku shaqeynaysaa ama ku daalaysaa inay heshiiyaan madaxda maamulka Galmudug ayuu yiri Maareey oo sababay sababta dhaqaalaha Galmudug loogu jaray hay'adda Galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa meesha ugu xumeed gaartay markii uu fashilmay shirkii Garowe oo arintan Galmudug ay ka mid ahayd qodobada ugu weyn ee halkaasi la isku marweysanaa dawladda ayaa ku adkeysanaysa in waqtigii Xaaf uu ku eg yahay sanadkan oo ay tahay in doorashada la qabto halka Xaaf uu sheegay in waqtigiisu ka bilaawanayo heshiiskii AL-SHABAAB iyo Galmudug ee 2018 ka dhacay Djibouti taasina macnaheedu yahay in Xaaf 3 sano ay u hartay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa waxa ka dhaxeeya khilaaf aad u xoogan kaasi oo sababay in maamulka dib u dhac xoogan uu galo madaxweyne Xaaf ayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyo in dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan madaxda maamulka Galmudug gaar ahaan deegaanada maamulka Galmudug isagoo sheegay in madaxda dawladda Soomaaliya aysan marnaba ogolaan in maamulka Galmudug uu dhismo madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareed ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wuxuu kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya kulankan oo uu ku welinayay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Shaaquna Maye ayaa waxay uga hadleen arrimo uu ka mid yahay xariga M.Robow oo Mansuur oo weli u xiran dawladda federaalka Soomaaliya odayaasha ayaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay u gudbiyeen cabasho ku aadan in M.Robow uu muddo dhowr bilood ah ku xiran yahay magaalada Muqdisho iyadoo aan weli wax maxkamada la geyn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Lafdagareed ayaa odayaasha dhaqanka oo kulanka la qaatay waxa uu ballan qaaday in dawladdu uu kala hadli doono sidii loo siidaan lahaa M.Robow oo Mansuur oo hore ugu mid ahaan jiray hogaamiyaasha Al-Shabaab balse dawladda isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya ayuu weli u xiran yahay M.Robow oo Mansuur waxaana socda dadaalo la doonayo in lagu sii daayo M.Robow oo Mansuur iyadoo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay dalbadeen in muddo 24 cisho gudahood lagu sii daayo M.Robow oo Mansuur oo dawladda Soomaaliya ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xilli uu taagnaa qabashada xilka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa M.Robow oo Mansuur ku eedeysay in uu doonayo in qalqal amni uu ka abuuro deegaanada maamulka koonfur galbeed isla markaana shuruudihii u dhinaa uu soo buuxin ayay tiri dawladda federaalka Soomaaliya xilli M.Robow oo Mansuur arrimihiisa ka hadlisay maamulka Galmudug ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay qorsheynayso inay maamul cusub ku dulisto xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka labada dhinac arintan ayaa waxaa sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan Masagawa oo ka qayb galay barnaamij ay qabatay idaacadda BBC-da wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay jartay dhaqaalihii ay siin jirtay maamulkaas si ay cadaadis u saarto waxaan ku baaqnay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay faragelinta ka daayaan maamulka Galmudug oo xaaladiisa ay tahay mid aad u liidata isla markaana madaxda maamulka Galmudug uu hareeyay khilaaf xoogan ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug sidaasina dawladda waxay cadaadis ku sii saartay maamulka Galmudug oo dhaqaalihii ay siin jirtay ka jartay
taasina ay keentay in maamulku dibdhac xoogan galo ayuu yiri wasiirka warfaafinta. dowladda Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inay xiriir la leedahay oo ay gacan siiso madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug oo ka soo horjeeda madaxweyne Xaaf. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maareeya oo isna BBC la hadlay ayaa beeniyay eedda Galmudug wuxuuna ku eedeeyay hoggaanka maamulkaasi inay doonayaan inay waqti ku darsadaan taasina dowladda Soomaaliya ay si weyn ugu soo horjeedo. madaxweyne Xaaf ayaa waxaa sababaha ugu weynaa shirka Garow ugu soo baxay in laga diiday muddo kororsi oo uu doonayay in waqtigiisa uu ku ogyahay 2021. madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in marnababa aan halkaasi ka dhici doonin doorasho lagu qabto maamulka Galmudug ilaa iyo waqtigiisa uu ka dhamaado. dadka reer Australia ayaa maanta Sabti u dareeraya goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi. ku dhawaad 17 milyan oo ruux ayaa la diiwaangeliyay in ay ka qayb qaataan doorashada maanta, balse in ka badan 4 milyan oo ruux ayaa codkooda dhiibtay Jimcihii. goobaha codbixinta ayaa furnaan doona 8 subaxnimo ilaa iyo 12 maqribnimo. xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda aqalka hoose ayaa soo dhisi doona dowladda iyadoona natiijada doorashada lagu dhawaaqi doono gelinka dambe ee maanta ama saacadaha soo socda ee maalinta Axadda ah. doorashada oo ah mid aad u adag ayaa waxaa hareeyay ka doodista wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha dalkaasi oo aad u liita. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media. intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.